لكن عاوة فرحات أي نوتة هي فرصة إن دقمدي هذون أن ساعاني أن جوجنو أنه كدافرناي داد جنتي أن أبلغ قادنا بلشة الصوماليات مجالات المقدسة كنول أديك داديستا إن هوس جارسينو وأن أقيبنه مجالات قيبة هذا كلا دوان قيبتي لبعض يعني عاوة كان كدافرناي وأديك بلشة هي هفنانتا شقدا تاسنا وعلم هديس وأحد داديستا هي قدوميها دقمة هذون هي أجاسين ننتبه عن ليها وكم أسنتين أن أنقونا رنتي بلنقادة إن أي كمدة هذي إن أنقارسين ندوينها هذيك وعن فيلا يا عاوة واتي لبات تي سدحان دي إلى رضوان صوبنا هذا كورا وحالة ربل رمضان يدور لجرو نما ولي استراويح دكانو بادية اسكجوج جرا وحول من البلد مساجد اللي قد دكان انتم مدور ما يدك كان عشاء دكان عشاء للدكو وعوارك الصلاة ديون لك بحين وارد ما توالى استاغ يا بي مركو بنانك وصوبحا وغلو وحوي مدي بنانك كوشا كاين سولة سكر ميقات كوغيدي لابو كنا كوغي أفريتك سليد ميقات كوغيدي انت اسيتك مركاسور عشاء ميقات كوغيدي نسأل أفرحهم كل اللي بعتقع وتبي رسول الله قال يور وسعبرنا كل عور هذا دقيقتي هذه هالجواب وشنقان اللي هذا اللجوء سدات بقرا قفوض ما أنت اللجوء ذيجاي كان كلومي سنايين كواحدة ما ركتي فاجأ يو عبد الرشيد يا كشقي ستي كلومي سنايين كوحدنا وكسفين الحمد لله ماشي شلي هالك شنقان اللي سوق تجري قبل الصوماليات هي هو مسكين تعه هي أباء حنوسان كل جود هالك سوق تجري ما أنت وعن رجينا عد كاستجوبت وجوبت كل دولة إنه يكوهشوا تاس واتاس قلب كلمات وحوري هداي سنتور كان ملاينا إنه مصحوا وزيرك إلياس وحوري هلا عبال مريور واحد وعبال مرسنته معايا لي وحصو صار كعد كاستو وحصو صار تاني وحنو بلن قادنا برسنتيجنا السيرينو برسنتيج كاسا يكو عبال مرسنته أيضنا هرمو مجرين marka taasna waxaan leeyahay waa dhiirigelinayno dhalinyarada ama ragga dadka ka shaqeynaya goobaha si aysan u bidan inay dadka gacmeystaan ay uga kaaftoomaan taas ayaa sabab u ah marka waxaan dhahnaa percentage ayaad ku leedihiin wax soo saarkiina ayaan dhahnay taas ayaa keenta marka inay har yaabay soo taagnaadaan ay yiraahdaan war xagee banaan baasha geyne marka taasna waxaan leeyahay sidaas marka waxaan kala rabaa inaan uga faa'iideysto goobtan hadda aan joogno waa degmadii Hodon waa caasimadda magaalada Muqdisho meelaha istiraatiijiga ah waayo walboolihii waa meelahan oo kale magaalooyinkaas dibadaha ku yaalo faras magaalaha meelaha la yiraahdo marka oo rabo baabuurka ama qofku inuu tago xataa jagboonti ayaa lacag laga qaadaa markaas la yiraahdo gudbi meesida lacagta bixi marka hadda Hodon waa la iska soo booqday idoo lacag laga qaadin laakiin waxaan rabnaa Hodon laftirkeeda hoteeladii ku yaalo isbitaaladii ku yaalo jaamacadii ku yaalo maaragtay wax kasta oo maaragtay loo muhalaha ayaa ku yaalo degmada darkeelay qofka degan markuu rabo inuu iskool aado ama jaamacad aado ama isbitaal aado Hodon uu soo aadaya marka horta aliyo laftirkaaga meeshii munaasabkeeda muhiimkeeda madax laga dhigay inaa jidadka dhisatay la idinka rabaa marka waa sax baahidu way taagan tahay degmada Hodon aniga xundurtayda ku duulay laakiin waa la kala gooyay laakiin degmada meesha ku dhashay ee barigaan dhashay meelaha hadda ugu nuurka badan ayayna ka mid tahay waxyaabo yar marka hadda interloga iyo dhismooyinka iyo dabaqyada iyo ku yaalo ma malay kartid alxamdulillah dadku waxaad moodaa inay soo ilbaxayaan ay ka shaqeynayaan say wax u quruxsanaayeen laakiin wali waxaan joognaa guriga deganta qurxi meesha aad marayso qurxi laakiin waxaan naga maqan danta guudna inaan qurxino maxaa roob daayo ama meeshaasi gurigaasi weyn biyo soo tufaya biyaas xagay tagayaan lagama fikirin maaragtay wax walba qofka marka tiisa kale uu ka fikiray laakiin marka taada ka firto tan guudada ka fikirin taadana waa lagu imaanaya marka waxaan rabaa danta guudna inaan ka fikirno waa laga maarmaan
waxaan rabnaa halkan maalin gudoomiyaha degmada Hodan waa isu nimid waa yimiday waxaan isku ogeynay in dib la isugu laabto oo maaragtay annagana canshuurta dadka aan ka qaadaynay qaybo kamid ah inaan ku celino kaabayaasha dhaqaalaha way naga go'an tahay hadii Ilaahay raado aan ku celinaynaa waliba wadada taleex wadada hadda ugu muhiimsan waaye oo baabuurta waaweyn xamuulka sida ay soo maraan suuragalna ay tahay inay godadka intay ku dhacaan ay gadoomaan kadibna baabuurta ama masaakiinta dadka meesha mara ama mootooyinka inay ku dulacaan taasina waxay u baahan tahay inaan si degdeg ah wax uga qabanno waxaan kaloo kugu bishaaraynaynaa mashruucay aan lahaynay 2016 ee ay dalka ku dhisay $1 ayaan dib u soo celin doonaa insha Allah kaasana wax badan ku fuli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo bambaydo ay maatayeen markay maqran dalka ku dhisay $1 la soo celin xataa ayagu waa fadhi waayay maxaa jidakay ku dhib qabi jireen marka sidaas la mid ah waxaan rabnaa inaan idin dhagax dhigno arigadii degmada Hodan marka waxyaabaha yarowgaan ka bilaabo weynaa sidoo ka dhawaajinayabo inaan buundadii isaga gooyshayeen ardadu ay wadooyinka ku gooy lahaayeen inaan bilownay mid waba dhamaad hadda midna kullu waa la bilaabi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo wadadii xooshka imaanayso ex control imaanaysa iyaduna markaan shaqadeeda way bilaabatay guri kasto oo si qaldan ama meel qaldan ku yaalana waa la duminayaa cid looga yeebisa ma jirto hadii Ilaahay yiraahdo haduu jid soo galay waa la jajabinayaa maxaa la jidka waa dan guud gurigana adaa iska leh guriga marka meel kale geyso loo fadhi maayo taas sidaas aan leenahay waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto kulanka caawa oo dadkii dhaqankii iyo siyaasiyiintii akhyaartii oo dhan ay joogaan meel sahlan ma marka waxaan rabnaa insha Allah wadooyinka wadaay garaadka ka dhawaajinayay oo ama soona kay ah ama taleex ah ama mid kale ah kulligood baadii Ilaahay yiraahdo qorshe ay noogu jiraan waa dhisi doonaa laakiin waa goorme markaan idinkiina ka aragno dhaqdhaqaaqiina iyo garab istaagiina hadaan ka aragno annagana waxa waaye way idin kabaynaa waan idin la dhisaynaa insha Allah intaas kadib